السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن سلام ولا عليه ميل كستو أدونك أكد جوجتين بقى إن مركا ugu horeysa kusoo dhawaada channelkayga insha Allah aad iyo aad dad sharaf leh baa daawada oo ma sha Allah aad ii dhiirigeliya maanta runtii waxaan rabaa wax yar inaan idin la hadlo qofka bini'aadanka siisa banaanba haddii wacyigelin loo samaynayo ama wax loo sheegayo waxaa fiican in wax xaqaayiq ah oo maaragtay cad in loola yimaado rasuulka calaih salaatu salaam maxay ahayd wuxuu yidhi qof munaafiq haddii idin yimaado ya wuxuu maaragtay yidhaahdo hala boodina آية القرآن ويجرتي سيد منابع فإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا قفاسق هدو النبأ أما ور إذن لي مادو إسكع الضيق أو حقيقة هذه إن إذا كدير مرحبا وحرمتي أركي فيديو آدية عن مارتي وجمرجودي إن أيان تنادى لود وذي فتحي عباسي oo maaragtay heer la gaarsiiyay inay tahay maaragtay wax yani faasuqad oo dadka isku dirayso rag iyo dumarka isku dirayso naago gabdho waxa arkay Facebook ku soo qoro leh maaragtay nimankaygaad nagu diraysaa laakiin naagahan gabdhahan iska bacbac leh maba aan kala jeclayn sheekadooda waan iska sii dhaafay nin waxaa arkay soo fadhiistay oo nin weyn ah oo yacni ilmo yaroo aad leedahay waxaan caqli ma lahane waxbuu arkuu la boodayaa aan ahayne qof diin iyo axaadiis meel allaale meelay ka socota aad fahmaynin oo leh axaadiis iyo diin baaba wadaabo maaragtay oo maaragtay dumarkii wax allaale wixii laga hadlo iyo maaragtay aad arkaysid suu ugu qiimaha gabadha Soomaaliyeed qofka dumarka ah uu hoos ugu dhigayaa arkaysid waxa weeyaan magaceedii Fatxiya waxay ka hadashay guud ahaan dhibaatada hadda waqtigan la joogo aan ku jirno dhowrkii sano la soo dhaafayna ilmo yaryaroo la xoogayo ilmo yaryaroo maaragtay la dhibaataynayo ilmo yaryaroo culumadii ay arkayso gabar yaroo 13 jir iyo 12 jir iyo 10 jir nin 70 jir iyo 60 jir loo guurinayo lacag lagu inta aabaheed la siiyo lagu daraayo waxyaalahaas oo guud ahaan ah bay ka hadashay teeda kale waxay ka hadashay haddii maaragtay gabadha dil iyo xoog wax looga qaado inay kufsasho tahay marka eraygii kufsashada abaaba qalad laga fahmayba oo leeyahay waxay leedahay ninkii hadduu ninkaaga yahay oo ku qabo oo xalaal kugu qabo maaragtay suu ku kufsan karaa wuxuu ku kufsan karaa haddii kufsiga ereyga macnihiisa kufsiga اغتصاب means qofka qasab wax looga qaaday carabtu اغتصاب carabiga lagu yiraahdo kufsi اغتصابkana waa qofka wuxuu saraali ka ahayd in wax looga qaado marka Fatxiya Cabaas haday idin tiri qofka dumarka ah haddii xoog wax looga qaado iyo dilmo waa kufsi qalad ma isa sheegin diintana kama isa bixin ninba intuu soo qaatay leh maxay ahayd WhatsApp-ka waxa la igu soo diray picture ay qaawan tahay oo diinta ka baxsan tahay oo haddaan idin tuso naaragtay aad qaracmaysid war hade you wanna know about Fatxiya Cabaas go Google magaceeda kaliya gali bal adiga hadda hadlaayo oo nacnac leh maaragtay oo iska neeninini dhahaaya haddii magacaaga Google la geliyo Facebook-aaga soo baxay Instagram iyo haddaad leedahay Snapchat iyo waxyaalaha qurunka ah oo lagu shaqeysto baa soo baxaya laakiin iyada haddaad magaceeda gelisay historygeeda ku soo baxaya wax allaale waxay ahayd inay maaragtay oo haaye u shaqeyn jirtay
inay maaragtay washington d c ka shaqaynaysay inay washington ka shaqaynaysay inay communityga la shaqaynaysay inay dadka soomaalida waxyaalo badan u qabatay oo intaas soomaalida manisoodho dhalinyaradii yareereedii lagu dilayay ay la shaqaysay oo maaragtay intaas ay wax soo qabanaysay oo dumarka soomaaliyeed iyo ragga soomaaliyeed iyo ciyaalka ay intaas daba taagneyd waa soo baxaysa qof kastana markuu dhalinyaro ahaa ya qof xijaab ku dhashay ya ma laha qof kasta markuu dhalinyaro ahaa wuu maaragtay dalkan markii lasoo galay haddii idoo yar adoo dhalinyaro yar oo teenager lagu keenay dalkan ama aad timid waxa weeyaan xijaabku maaragtay qof kasta markuu ilaahay soo hanuuniyo ama uu go-aansado asagoo qofka salaada 5 waqti tukanayo maaragtay uusan xijaabnayn kaasna ma aha inuu gaala yahay qofkaasna ma aha laakiin waxa weeye qofku markuu asaga niyadiisa ay kasoo go'do inuu is asturo ilaahoo mu 50 jiro ama 40 jiro ama 60 jiro ama 70 jiro markaas ya buu is asturayaa dadka sacuudida culumada sacuudida waxaa arkaysaa culumo waaweyn oo niman ah isleedahay dadkan maasha allah waa culumo oo naagoodu indha shareeran yihiin orda dalalka carabta taga mar allaale markay elbor kasoo degaan dalalka carabta ama lebnaan ha noqoto ama syria waagay nabadda ha noqoto ama qaahira ha noqoto ama turkiga ha noqoto meelaha dalalkaas markay tagaan bay dharkas ka dhigaan kastuumo iyo dabagaabooda xirtaan kulligood marka it doesn't mean indha shareer iyo xijaab inuu qofku diin leeyahay ama akhlaaq leeyahay ama qof wanaagsan yahay hadday fatxiya kuma ay dhahayso aniga maaragtay wadaad ba ahaa oo caalimad ba ahaa oo quraankan dhameeyay oo indha shareer baa weligii qabi jir kuma ay dhahayso runtii kuu sheegaysa aniga waagaan yaraa yes qofkas waagu yaraa google ay ku jirtaa youtube ay ku jirtaa ayadoo la wareysanayo oo madaxeedu qaawan yahay that's no problem with that wax ceebaynayna ma aha wax sharafteeda meel uga dhacayna ma aha marka ninka inta la soo fariista dhahaya waxyaalo waxa idin wadaa ma hadda whatsapp kale igu soo diro hadda aragtiino وسو iska dhigaa arkaysid oo haddana at the same time aytamaya waa fusuqad waa bilaadiin waa xagga war adiga qofka bilaadanka sidiisa banaan hadduu qof respectful yahay ama qof ixtiraamka yaqaan yahay ama qof diinta intaas in la eka yaqaan uu yahay ya oo salaada ilaahay tukado oo qof ixtiraamka iyo respect yaqaan uu yahay qof bilaadan afkiisa kama caynaayo subhanallah videogaas ayadiyo caay wuxuu kaloo caayay nin uu yiri uu soo dhaweeyo hebel baa la yiraahdaa naagtiisa asagu ismaba qabaanba waa qadfi gabar muslimada oo Soomaali ah iyo xaas iyo ninkeedii wuxuu leeyahay ismaba qabaanba waxa la yiri isma qabaano xaraan bay isku la seexdaan marka qofkaas oo kale baa 7,000 oo qof daawatay bal idinku ka warrama mid kala ii soo hartay iyadana video aan arkay oo islaan waayeela ah oo leh Fatxiya Cabaasi qof sharaf laha u qabay qof sidaana u qabay qof maaragtay fiican ba u qabay oo maxay dhibaatada ku jirtaa ninku hadduu naagtiisa qasab wax ugu qaado markaas ay macaan tahay qofkaas oo kale maxaa ugu jawaabay marka commentiga u qori kartay muxuu yahay ku dhays waxay macaan tahay markii qasab wax la iskaga qaado that means she does not have anybody asaga dhanay balaadahay marka qasabka naftirkiisa baraadinaysaa in dil wax looga qaado dad rafka jecelna way jiraan reality-ga dil isku sheegay runta oo la iskala xishoonaynin naag in la dilo wax looga qaado jecel iska jirta laakiin boqolkiiba hal iyo laba ma ahan inta kale qof qasab wax looga qaado jecel in ikhtisaab lagu sameeyo ama la xoogo ama la kufsado midna ma jiro teeda kaleeto marka aad leediin kufsiga maxay uga hadlaysaa war heede ninka gabadha 15 jirka lagu soo daray oo 60 jirka miyaysa kufsi ahayn halkan dalka aan joogno child molestation al dhaha waa ninka ilmo yar oo asaga awow u noqon karo korka ka koraaya subhanallah markaas la leeyahay maxay u leedahay waxbay kufsatay taasuma diinba diinta maxay tahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un diinta maxay tahay dhigaysa ma aragtay in gabar yar oo 12 jir 13 jir ah nin 60 jir ah $100 $500 intuu ka bixiyo uu guri keensado oo korka ka kor habeen kasta taas miyaysan kufsi ahayn
waxaa la yiri xagga war heedhe hadalka ha iskala boodine hadalka macnihiisa fahma hadalka gabadhan say wax ku waday ka fiiriya ma idinku jiraa qof 20 sano ama 15 sano ama 10 sano lasoo dhaafay Soomaalida wax u qabtay ma idinku jiraa qof Soomaalida caawiyay idinku jiraa qof magaciisa hadii inta Google geliyo sharaf laho buug sameeyay oo wax taray dalka magaca Soomaalida wax taray ma idinku jiraa mid kasta kamarad iyo telefoon tuu soo qaato halkaas ka nacnacley habar kasto meel ay ka imaad aad aqoonin waad ka naxayso og tahay ba iska nacnacle oo iska caytamaysa war dadka islaamka ah dadka idin dhibaataynaya oo dhibaatada idin ku sameynaya dadkaas iska celiya dadka qabiilka idin ku wada iska celiya dadka idin kala saaraya idinkoo hal ummad ah oo hal luqad ku hadlaaya oo hal Soomaali ah oo diinta islaamka wada haysta diinta intii ka baxdayna waa xagga iska badhig dadka idin kala guraaya oo maalinba qabiil idin kala guraaya oo dalkiina iibsaday oo oilkiina iibsaday oo maaragtay ilaahay wuxuu maaragtay dalkii ka soo saaray iibsaday oo qabiil iyo qurun 1 years idinku wada u wada istaaga oo iska celiya gabar wax taraysa dalka oo dumarka u soo jeeda oo gabdhaha Soomaaliyeed u dagaalamaysa ha u soo jeesanina kulligiina wallahi billahi tallahi hadaa maqashininka wuxuu sheegayo ma tag ba idin qabanaya videogiisi I have to look for it for real la yani wax aqli gala ma aha waxyaalaha uu ku hadlay ninka hadaa dhigi waxyaalaha waxaba iiga daranba waxyaalaha uu ku hadlay waxaba kaba sii daranba caytinta oo caytamay ninkaas life-kayga ma arkin qofka bilaadanka hadduu wax ku qaldan yahay waa loo sheegay waxa la yiraahdaa hebelow saasa waxaad ku qaldan tahay iska daa qaladka aad sameynaysid hebelow maaragtay jooji waxaad ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda islaamka ku iska jooji laakiin qof caytamaya والله بالله تالله marka waxyaalaha qaar kood markaad adeegsatid waxa weeyaan waad la yaabaysaa Soomaalidu waxay yiraahdaan raxmarka wali caadi yiraahda geel adduunka si joogtayna geel dhalay waa arkaysaa maxay ahayd qof waa kana Starting an online store is easier than you think. Let me show you how to quickly open one with Shopper. isku guursaday maxaa kelmadda kufsi meesha soo gelinay kelmadda kufsi goorma imanaysa walaba qof aan sharci isku qaban baa lagu isku xitaa wuxuu ku leeyahay xitaa nisaakum xarathun lakum aydaas intuu soo qaatay dumarkiina waa xalaashiina iyo xoolihiina iyo beertiina oo ilaahay qasdigiisa iyo tafsiirkiisa uu ka waday waa milkigiina si wanaagsan ula dhaqma xitaa ayda ma sii dhamaystiray markaas uu leeyahay ma ogtiin dumarow inaad beertihiin oo nagu idin leenahay yani waxyaalaha ku hadlay ninka xuma magaalada caadi joogto iyo magaalada laga saaro laba mid weyn dhageyso TV la soo fariistay iyo dhaqanna xumo meesha Mareykan ma Ohio Columbus ma waxaan ma soconaya meeshan waxaan kama socdaan ma fahanta hadduu jaamac ku socdo ku soco waa kana ninku caynay iska hadal waxa weeye gender issue iyo horta naagaha genderka ka hadlo dhan waxa weeye malaria hoos wada genderka hadda rag gabadh ama feminist oo badan ka hadlaysa ma garaasaay feminist ayada quraanka galo war xanaaqsanahay marka waxa laga yaabaa in xataa mawduuca marka qaran ka baxo ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay nisaa'ukum harsun lakum fa'tu harsukum annashitum ma haytan ma shi'tum weeyaan he doesn't even know what he's talking about adiga fadhiyo cabsiya beer baa tahay ilaahay beer buu kugu sheegay nisaa'ukum harsun lakum bali harsu waa maxay waa beer fa'tu harsakum annashitum beertiina meeshii arabtaana ka falataan ka fasha oo uga taga kaas waa qaabka weyn
استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. beertiina meesha doonaysiin ka fasha. What does that even mean? xaggee tafsiirka quraanka looga sheegay la yiri beertiina meesha doonaysiin ka fasha. وأتوا حرثكم حيثما شئتم يعني ومركا جماعة دونيسي إنا وجماعتين وحيالا حاران تماهنا وحي كستو الدونيسي واتسمين كرتين بآيات قصدي جيد هايد لكن بيرتي نفشو ماشا دونيسي كفشا. what kind of تفسير is that؟ دينة إسلام كإي وح الله لوح إي قاني منا وإسكهر لايا وداد عجيبة والله بالله. arrimaha noocan oo kale inay faraha la gasho arrimaha diinta iyada xadiis soo daliishanay ayad sheegay sheekhadan bay igu ilaahay oranay inay gabadhu tiraahdo waxa weeye watan hadalkeed aniga hadalkayga waa la googooyay waxa weeye hadalkayga waa la jarjaray anigu ma oran ma garanaysaa ninku hadduu xaaskiisa qasbo waa kufsi waa duubtay sidaasaa tiri waxaad markaa ku lifaaqdo tiri dumar yar baa la kufsadaa habla yar baa la kufsadaa fiir wad ku lifaaqdo عجيب adigu dawlad ma tihid qof shacabaan waa cajiib. almuhiim sheekadii aad ku dheerayni waxaas iyo wax lamid ah dadkay ka buuxa waa dad cajiiba ah runtii dad cajiiba nahay. waa idin salaam meel kasta adduunka joogtiin waxaad dhageysatiin ha iskala boodina waa idin baryayaa dib uga fiirsada oo wax allaale waxaad dhageysatiin markaad qof maqashiin inuu qof ka hadlaayo dib u baara videoga ay ka hadlaayaan iyo gabadhay ka hadlaayaan iyo waxay tahay iyo asalkeeda waa la yaqaanaa Fatxi Cabaasi. qof aan cilmi lahayn ma aha qofka marad inta soo iibsatay fadhiistay meelna ma aha waa qof cilmi leh oo mutacallimad ah. marka dib uga laabta dib u fiiriya sheekada asalkeeda raadiya videona ha duubina idinku intaad qof waxaan oo kale saqajaankan oo kale inta maqashiin la boodino ha duubine waa idin baryaayay dib u raaca oo investigation ku sameeya waxaad maqashiin oo faasiqun binaba'in fatabayanu qof faasiq hadduu naba idinla yimaado war idinla yimaado iska caddeeyo oo dib baara oo gabadhan say sheekadan oo iyada message u diro waxan baa la yiri marhum baa yani waxa weeyaan baara waxa video intaad duubtiin ha la boodina because it's a trend wax socdo weeyaan oo waa inaa marba topic laga hadlayo ka hadlayna waa iskala boodin ha dhihina waxaad samaysiin iska baara idinkoona baarina ha soo hor fadhiisanina kamarad oo qof bila aadan ah yuusan dambi idin keenin لأنه every single time qof wax ka sheegtiin waa dambi idinka idin socda biri inaad dhiman doontiin ilaah baa og hadda waaga kuu bariyo ha sugin gabalka inuu kuu dhaco yara soo kacasaasa hadduu gabalka kuu dhacdo ha sugin waaga inuu kuu bariyo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.